السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحويان 10 كوباد وطحنينا نقطنا أيها كان عاو كتبنا 10 كان وحو كهضيا إن وبرشة إكسل كا هذا هو برشة إكسل كهديان هرمعك بحيو إن لاين كاتشيف جيفات صالحة وحلورانية ويرو لاين كاتشيف جيفا رو ولا هذا صالحة لاين كساو جيفا رو ولا هذا sidoo kale line-ka sida u taagan amba line-ka saa u taagan vertical-ka waxa la yiraahdaa cell baa la yiraahdaa cell ayaa la yiraahdaa sidoo kale halka waxa ka muuqda sheet baa ka muuqda sidee sheet kale aba new sheet si loo furo kale hadii aan halka ku dhufto plus ka waxa ku qoran new sheet warqad cusub fro وأنا ما كفرتي تصالحان نيو شيت كلافر أي ساجنا وفرتي ست شيت بما كتصالحان كان كفراي تي هرمو يعني لبا كلا أيام فراي مت ستحات دوني نفرا مركب براس كأقول فنيا براس كمركب حساب حياة نيو شيت كلا أيام فراي سيدا كلا هدي أنا كان سأقول فتو وحكو قرن customizing quick access toolbar يفرق بدن يا كتير هتاني مكان كان أقول فتو more كمان waxa soo baxaya waxyaabaha ku darsanayso sidoo kale hadii aan doonayo file hadii aan doonayo shapes add baan siin doonaa kadibna okay baan taaban doonaa marka ku darsanayo halka shaashada sare waxa soo galay shape ayaa soo galay waad aragtaa halka shape ayaa soo galay sidoo kale waxa uu ka kooban yahay excel-ku waxa uu ka kooban yahay normal view waaniga jooga normal waa halka normal view baa la sidoo kale wuxuu ka kooban yahay page layout sidoo kale wuxuu ka kooban yahay page break ayuu ka kooban yahay sidoo kale zoom ayuu ka kooban yahay waa laga yareeyaa sidoo kale plus iyo minus laga soo weynayaa marka tusaalaan waan soo weynayay shaashada ku aragtaan shaashada ka muuqata waan soo dhaweeyay oo waan soo weynay waana yareyn karaa bartankii marka waan ku celiyay sidoo kale waxyaabaha kale ee uu ka kooban yahay waxa kamid ah in sidee magaca lagu qoraa tusaalahan sheetyadan markaad magaca ku qoriso sheetiska halkee ayaa tagaysaa sheetkaad ku dhufanaysaa kadibna mouse-ka ayaa dhanka right-ka ayaad ku dhufanaysaa badhanka bidig markaad midig ku dhufato halka waxa ka soo bixi doonaa rename magaca ku qor imanka tusaalaha magacii waan ku qornay waxaan ku qornay daahir ayaan ku qornay banaankaas aan kala gareynay halka waxa ka soo baxay magacii in bedelay oo magacan ku qornay yahay daahir sidoo kale warqadeeni saddexaad aynu furanay new sheet ka hay ayadana magacaynu ka bedelayna rename ayayna tagaynaa eeg mouse-ka ayaad kala garay doontaa lefty dhanka midig ayaa mouse-ka lefty ayaa click siin doontaa kadib magacayna iyadana ku qoraynaa magaca ayaan ku qoraynaa waxaan ku qornay caasha tusaalahan sheetkeeni saddexaad isagana waynagan rename waxaan ku qornay anad iminka marka halkan hoose waxa ka muuqda sheedyada waxa la wixii sheet aan furanadan magacyadii ayaan ku qornay mid anad baan ku qornay mid daahir mid caasha hadii aad doonaysid inaad ka dhili garayso magaco kale sheetkaad ku tagaysaa kadibna dhanka midig baa mouse-ka kala garay doontaa kadibna delete baan siin doonaa kadibna haddana kii kale tagaynaa sidoo kale delete baan siinayna sidoo kale iyadana anaba tagaynaa delete baan siinayna iminka hal sheet oo kaliya noo soo hadhay hal sheet oo kaliya ayaa noo soo hadhay sidoo kale waxa ku xiga qaabkii loo delete gareynayay iyo qaabkii sheetka loo soo gelinayay labadiiba waan isla eegnay sidoo kale waxa ku xiga sideenu color u marinaa sheet salahan seen halkan color u marinaa intaas oo kaliya ayaa doonaynaa inaan wax ku qoranay inta ayaan color marinaynaa color halkan maxaa ku qoran colors baa ku qoran waan furaynaa kala duwan salahan colorkaasaan ka dhignay salahan colorkii waan bedelaynaa more color baan ku dhufanaynaa waxaa soo kala ee kala duwan kii aad doonaysid wax ku diyaarsato okay waan siinay colorkii isbedelay
waad aragtaa inuu colorkii isbedelay hadhow tala colorkii waan saahay la saarayaa kadibna marka doonaan ka qaado waxaan tagaa color waxaan ku dhufanayaa none kadibna banaankaas ku dhufanayaa haddii aan doonayo inaan sideedii ku soo celiyo iminka colorkii waan ka qaadnay sidoo kale colorkii marka waan ka qaadnay oo none ka dhignay cadaan ka dhignay marka doonaa colorka inaan gebigeeda ka wada qaadno halka maxaa ku qoran none color ka hoose waxaa ku qoran none aba no file baa ku qoran anaga automatic ka qaaday automatic ayaan uga qaaday colorkii marka sidoo kale waxa ku xiga sida warqad cusub aad u furan lahayd marka warqad cusub furanayso iminka halkii ayaan tagaynaa kadibna halka maxaa ku qoran new kadib haddii iminka halka aan tago waxaad ku aragtaan waa control iyo n isla qabo waa creating a document cusub amba new document markaad furanayso aba waxaad isla qaban kartaa keyboardka control iyo n iminka warqad kale furnay timoyo mid kale ayaan furnay tan saara hata warqadeen marka furay warqada aba booktu baan furay oo kamigan joogno sidoo kale waxa ku xiga qaabkee ayaa loo save gareynaya warqadan tusaale ahaan waxbaa ku qortay tusaale ahaan warqada iyadoo tanaan qornayba October November kadibna saasaynu qabanaa halkaa ayaad ku beegaysaa mouska markaa ka bagta way soo jiraysaa iminka biliyo dhan way noo samaysmeen waxaan rabnaaba inaynu Friday iyo Monday labadaasaan qornay maalmada iyagana kadib maalmihii kale highlight intiiba saaraysaa halkaasaad ku beegaysaa kadibna way soo jiraysaa xidan saana waxaan rabnaa inaynu save gareyno tusaale ahaan intaasoo kale inta 10 baan ku diyaarsanay amba goob shaqeyn wax ugu diyaarinay waxaan doonaynaa inaan faylkii aan save gareyno file baan tegaynaa kadib save as baan ka save gareynaa save as kadib browserkan ayaa furanaysaa marka browserka furato desktopka ee tegaysaa halkaana magacii ayaad ku qoraysaa faylka doonaysaa inaad save gareyso kadib save ayaad ku dhufanaysaa sidoo kale markaad doonayso inaad faylka samaysay recovery amba intuu ka baxay aad doonayso inaad dib u soo recovery aad dib ugu samayso waxa ka tagaysaa tusaale ahaan waxaad ka tagaysaa markaad recovery ku samaynayso isla faylka ku dhufanaysaa kadib marka faylka ku dhufano halkan waxaa ku qoran warqad fur tusaale ahaan warqad baynu furana exam and reading examka iyo wax akhriska maxaa ka dhacaya aynu tusaale furana laba goor baan click siinay mar baan click siinaya kadib markaan click siiyo aan sugaya waa kan exam maxaa ka dhacaya tusaale 10 aan diyaarinay waa kan noo soo kacay kadib halka waad ka furaysaa halka ayaad ka diyaarinaysaa ka furaysaa sidoo kale markaad PDF ka dhigayso hadaba markaad 10 kan oo tusaale ahaan PDF ka dhigayso PDF ka dhigaysaa qaabkee ayaad PDF ka dhigaysaa qaabkee ayaa PDF uga dhigaysaa qaabka PDF uga dhigilay ayaa la doonayaa tusaale ahaan waad ku qoratay inaad PDF ka dhigtaa doonaysa file ayaad tegi doontaa kadibna waxaad ku dhufan doontaa export ba ku dhufanaysaa halka waxaa kaga soo dhacaya aba waxaa kaga soo baxay create PDF ka dhig imika aniga PDF ka dhignay okay PDF ka dhigana markii PDF ka dhigna waxaan ku save gareynay music halkaasaan ku save gareysanay maadis baan kusii tagnay PDF publish it baan ku dhufanayna publish it ayaa kusoo dhufanay PDF ayaa noo noqotay in halkii ma ka soo saarnaa iyadoo PDF ah marka waa qaabka looga dhigayo PDF sidoo kale waxaan tegi doonaa file kadib option halka waxaa ku qoran save out recovery halka waxaa ku qoran waxa weeyaan sida recovery lagu sameeyo iyadana waad aragtaan qaabka recovery waxaa ku qoran save out recovery
marka 10 minutes baa ka qoran marka waxa ku qoran 10 minutes ilaa 10 mir in ku dhow ayaad ku heli kartaa warqadaadii kugu soo celinaya ama warqadaadii aan ka saarhayn oo ku sii kaydinaya inkastoo excelada qaar automatic recovery kugu